إذن إسبدل كبني آدم كعقله كبلا ما إسبدل كماتيريال لكو بجرايه ما ماتيريال لكو بجرايه عربت الدار بعد 40 استي لكن ما وحبي سوكر ديين سكاي سكرابس بي ودا ديسين أنا قاعد دار تيدا تينا كده والله بدار عركة قبل إن شاء الله ودا ديسين لم يقرح بدل ما لسه وحاسمها وحبة بدلها ماتيريال كود سوكر بيسو هرمركم معها هرمركم بني آدم كود بدشوا سيدو فكريو سيدو وحب عريو سيدو وحق بنيو بني آدم كود يسقى مركع نقالها السماية يسقى وحصوصار كالسماية يسقى وحك السماية جيرماني دول كلا لسماي لكن عقلي جاي هرو بدلين دول كمركي لا لسماي وحي كدغان محي مالك بن النبي با وحو اوران جيري markii dhulka la simay Germany hadii Jarmalka la soo qaadi lahayo wadan Afrikaan la dhexdhigi lahaa buu kuwa Afrikaanka ee degan la qaadi lahayo Germany la geeyay lahaa kuwaasina meel dulsan uun ba iska noolaan lahaayay buu leeyahay kuwa la soo qaaday Jarmalna wadan cusub iyo dal cusub ay sameeyeen yani waa bini aadamka sidoo uu fakariyo soo wuxuu arkayo soo wuxuu qabanaya la isbedela idan kaadirkaanu rabno ma ahaan la dhaamiyay ma aha shahaado waraaqad sidato xagga sarena koros kaga sawiray xagga hoosana ay ku qorantay in the name of law bismil qaanuun hatta bismillahir rahmaanir rahiim wa ta'ala bismil qaanuun ay ko tii ka caan ku bixin jiray waxa saan noogu qoraa تيسير بالروضة كصومالية وكقاضي حتى بسم الله الرحمن الرحيم ولا هين بسم القانون باكو قري in the name of law شهادة ورقة ما تنفع حبا كورين ماشي هذا هو ماستر هو فيرست ديجري بوسيتا يا لبا ماستر بوسيتا يا لبا بي اتش دي بوسيتا هذا ما تنفع هو ورقه لكن هداد ادو قف بدليت هيس مركز معنا سمينيسا PhD gaagu wuxuu macna sameeynaya marka tahay mutaallim rasmi scholar rasmi marka tahay marka aad nolosha wax ka bedelayso marka aan thaqaafadii odayada dib noogu celinaynin laakiin haddaad inta halka tagto safka halkii kaga beerto wadanka marka aad tagtaa tiraado halkeeba dhadhan badan halkeeba wax laga xadaa dawladda halkeeba wax laga khiyaameyn karaa farsamadaadu ay noqoto good accountant baan ay wax isweydaarin karaa oo waraaqad beena soo saari kara bahashana la bixi kara waxba tuuganimadu ma xirfad soo baratay tuuganimada ay ma xirfad soo baratay marka waxaan u baahanay waxa weeyaan ka maanta dunidana isticmaar jadiida jira isticmaarka cusub new colonialism ka cusub waa isticmaar sida quraanjada dhulka marayso buu ka soo hoos baxaya gurigaaga adigoo dhistay u badarkaysa oo iyadoo quraanjo meel daldalooliso ka soo dhex baxday jeexjeexu ka soo baxaya oo waa maxay jeexjeexu midunba ka soo dhex baayay kule الخدمات العامة بان idinku taageeraya caafimaadkan idinka caawinayna tacliintan idinka caawinayna askartaan waxsiinayna shurtadan caawinayna qaanuunka iyo maxkamadahan wax tarayna xuquuqul bini'aadamkan kordhinayna dumarkan xoreynayna caruurta iyo xuquuqdoodan ilaalin waxaas ay u wadaan kaaga soo dhex baxayaan bay bulshada bedelayaan ay dhaahdaan dunidan dambe subversion theory bini'aadamka gudihiisa laga jabiyay laguma duula bay yiraahdeen gudihiisa laga jabiyaa waxaan rabnaa mujtamacaadkeena way sii burburayaan siyaasi ahaan bulsho ahaan dhaqaale ahaan waa sii dumayaan taxadiyaad khaarij kuwa daakhiliya wayna haystaan laakiin kuwa daakhiliga gudaha ka jira ba xaqiiqo ah taxadiyaad dhab ah haday qabiil tahay haday mukhaadaraad tahay maanta wadanka Soomaaliya gobolada gobol kasta ama dawlad goboleedyada ama dawladaha madax banaanida sheegtay marka la isku daro meel kasta barjadka dawladda barjadka qaadka ku cunaan ba ka badan Soomaaliland mesela barjadka dawladdu 300 milyan buu ahaa meelaha sumaray Itoobiya qaadka qura ay ka iibsadaan 540 milyan bay iibsadaan qiyaas adigu ummad muqaddarka ay cuntaa uu ka badan yahay maxay barjadka dhan ee dawladdu leedahay marka la isku daro ma inagoo qura ma xataa caalamul islaami waa lamid dunida carbeed oo dhan marka la isku daro wasaaradaha tacliinta iyo wasaaradaha maxay sixada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta oo dhan marka la isku daro wasaaradda sigaar cabiska ka lacag badan bal qiyaas adigu caalamul islaami oo dhan marka la isku daro
sigaarka iibsadaa baa wuxuu ka badan yahay wasaaratu sixa iyo wasaaratu tacliim waxa ku baxa waa carab oo dhan markaad isku darto bilbalaayiin baa sigaar lagu cabaa idan isbeddelkaynu rabnaa daara maaha isbeddelka aynu doonaynaa ama mutacalimka aynu rabno ama scholarka aynu doonayno inuu waddankii tago intellectualka rabnaa maaha intellectual daar noo dhisa ama dhaqaalo sameeya kaas maaha asalka waxaa asalka intellectual bini aadamka wax ka bedeli kara waxaana bini aadamka wax ka bedeli kara qof isagu bedelmay qof isagu aqoon-yahan noqday qof isagu muthaqaf noqday taxdiyaadkeena daakhiliga waa kuwa waa xadkaas qabiil waxba ay ka socon waayeen dowladnimada soomaaliya way isu yimaadaan maxay qaadaan soomaaliya ay toosoo dabeetana way ooyaan shirarkooda waxaad sonaysaa war wallaahi waa kan ilaahay soo hadeeyey cabbaar markay ooyaan bay isdooranayaan oo qolo fanaaniinay gabaydo oo heesa la tiriyo oo calan la huwado oo caynka la sameeyo ayaa dowlad la doortaa dowladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyahay dee ama madaxweynahaad heli ama ra-iisul wasaarahaad heli ama kambaad heli dee qolunbaa soo baxaysa qola markay soo baxdo inta dambe waxay dhahaan waryaadhe nimankii reer hebel baa meesha qabsadee yaynagu dowladoobin haddaba caga haya afartiisa sane caguhun baa la hayaa ila reer hebel baa laga ilaalinaya magaca iyo maamulka iyo maamuuske afar sane markaynu halkii un taagannahay ayuunbaa haddana heesihii dib loo qaadaa soomaaliyay tooso waa kii shirkii labaatanaad baynu ma ummad 20 goor shirtaad aragtay waan dowlad u dhalanaynin kayf yumkin idan maaha masaladu miyaynan shirayn maaha miyaynan dowlad samaynayn maaha waxa masaladu waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahanay waxaynu u baahanay dhaqan bedel waa layna dhaqan bedelay ummad suldaankeedu qayelayo madaxweynaheedu qayelayo maamuuskeedu qayelayo wada muqaddara ummad qof waliba wuxuu soo gaaro u xadayo ummad qof waliba wax kasta uu qaadanayo inteeda badani dee ma jirto waxaan tiiriyadana dawladda hal qaqayga wax lagu oranay maxaa dawladda uga qayb gal wadaadada maxay ka idinku ahlu taqwaysan hadii madaxweyne laga dhigo wax isbedeli maayaan way dawladnimadu waa ummad nin maaha qof iyo laba iyo saddex maaha waa ummad fikrad rumaysatay oo wax qaadatay oo ku socota haddaan taasi jirin qof iyo laba iyo saddex iyo ka ugu daacadsan haddii la geeyo huwa intii kala caga haysa muxuu samaynayaa من reer hebelun buu noqonayaa sumadaasu yeelanaya markuu meesha tagay reer hebeladii kalena waxay leeyihiin cagaa hayday kugu dawladoobine marka ayuha alxiba waxay leeyihiin waxaan u baahannahay ضعف الوعي العام baa jira aqoonyahanku waa qofka bedela bay yidhaahdaan waa sunaacu الra'yi waa dadka bedela cuquusha ummadda oo waa maxay ummaddu عقوشة ولا بدلها سيدا وحو أركت ولا بدلها مشاكل كنا قدوه كيماتا إلهي وحو لي لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لبضنا آيات اسكحيان في سورة آل عمران إلهي وحولي دتك مؤمنين تا إلهي وحيدون كوك الله ضيستي دتك مؤمنين تا ربي وحو كن معيستي وكوك الله ضيستي رسول إيجا كميدا وإلهي آيات كيسا كدو الأخرين إياه وتزكية نفتو ذا ربين يحمها كطاهر ياليه oo kitaabka iyo xikmadda baraya inkastoo ay markii hore dad baadiya ahaayeen idan manhaj sax ba ilaahay idin siiyay baa la leeyahay laakiin hadda manhajka ka weectaan maxaa dhacaya waa jabaysaa macaad manhaj sax haysatid haddaad raaci weydo yani nolosha ilaahay wuxuu tilmaamayaa sunan dariselow qaanuun baa jira ilaahay nolosha u dejiyay oo haddaad ka saxa martana aad guulaysanayso haddaad ka qaldan martana aad jabayso سادرات بقى آيات كل حكتة إلهي وحليه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مركي أيدن هلا شيء بلايو دب إياكو بقى هداتك كلا مثل مدى قارسيسين أيها واحد قلت من هذا كيف هذا سوى حكا نودع صانو تشبني من المؤمنين هين إلهي وحكو شواب قل هو من عند أنفسكم إذنكم بودكم يتكيمي إذنكم بودكم يتكيمي
إذا كم بدك يدهي معناه دوا محي وحلا خالد با حريفة إيو عيد با نجبيسي وحسوا مرمرسيو عيبت هذا إن عيد كلا دوشة كسر توا مرمرسيو إثيوبيا نجبيسي كينيا نجبيسي مجتمع الدولي جابا نجبيي وروح حسوا مرمرسيو دول دول ده بيو يسري حيسي إثيوبيا هذا ما دلانين كينيا هذا ما دلانين maraykanku hadda ma dhalan markaad jirtayba kuwaniba way jireen haddii qofka difaaciisu jabo مثلا xanuunkan AIDS-ka la yidhaha waa maxay soo maaha difaaci jidhka ilaahay jidhka difaac buu siiyey heegana oo wax kastoo soo galo weerar ku qaadaya difaacaasi oo le bay yidhaahdaan gantaala leh oo basaasiin leh oo kan leh waa difaac dhammaystiran قاب عيدان ودقالما markaad white blood cells iyo say u dagaal galaan waa qaab ciidan bay u dhisan yihiin wax kasta weeraro dibad kaga yimaada virus ha noqdo maxaa la yiraahdaa bacteria ha noqdo fungus ana wuxuu doonay ha noqdo wuu difaaca jirka hadii difaacagaasi burburo wax kastaaba way ku dilayaan ina duray u dhimataa bay u badantay sida caadiga miyaynu naqaano qof duray u dhinta haddii difaacu jabo wax waliba waxay yidhaahdaan bacteria jirta jidhka ku jirta oo markuu difaacagu soo jeedo ogol mabda'a taayush silmi inay nabad kugula noolaato waxba ku yeelaynin laakiin hadday aragto difaacaga oo seexday cid badeedba uma baahnid bay leeyihiin inta kugu jirta weerarka qaadaysa then you will be on bed sariirta weerad markaa lagu saaraa markii inaga difaaceenu jabay manaacadeenu jabtay cid walo kale way ka faa'iideysanaysaa idan eedu maaha dadka dabadu maxay waxa noogu sameeyay dadka dabada ilow eedu waa adiga adigu haddaad bini aadam lagu xisaabtama noqoto qofka kalena uu xisaabtamaya maxaa qofkan mari kara maxaa se mari kara haddaad se noqoto qof la iibsan karo dee waa lagu gadanaya dhulka daaya dadkaa la gadanaya dee soo imika dadkeennii laguma kala gato Libiya iyo meelaha dadkeennaa la gataa dhulkeennaa la gataa xoolaheennaa la gataa wixii oo dhan baa iiba idan waxaan u baahanahay ayuha alxiba manahijtu maaha waxay naga qaldanay waa ku dhaqankii waxay naga qaldamay waa culture-ka aynu hadda qaadanay waxay naga qaldamay waa saynu u fakarayno haddaba su-aashii ahayd maxaa cilmigaygu wuxu tari waayey dee cilmigu hadduu suluukiisu bedeliyo dhaqanna waxbuu taraa hadduu si yari yahayna dee kama gedisna kaa rikoodhada ku jira ka internetka ku jira maskaxdaaduna waa nooc wax rikoodh gareeya wuxuunbaad noqoto in hal cajiladaa lagu biiriyo wax lagu rikoodh gareeyo hal meeloo wax lagu kaydiyo ayuumaad ka mid noqotay waxoogaa theories iyo waxoogaa aqoona lagu kaydiyey haddii aanay mar dhaqan noqonayno bini aadamnimadu waa markaad dhaqanka u bedesho waa markuu behavior noqdo waa markuu dhaqan iyo akhlaaq noqdo waa markuu isbedel keeno marka ayuha alxiba waxbaa baranaysaa si fiican wax u barta weeleeya cilmiga naqdiya oo critical analysis ku sameeya si fiican wax u barta wadankii markaa tagtaanna dad wax cusub soo kordhinaya oo isbedel bulshada ku sameynaya noqda isbedelka rasmigiina wuxuu ka bilaabmaa naftaada haddii adiga diintaada iyo caqiidadaada iyo dhaqankaaga iyo qaab nololeedkaagu isbedelo dan leadership attitude baad leedahay dadkana waad bedeli kartaa markaa haddaad si adigu bahal wuxuu soo gaadhaba cunaya tahay nin reer hebelaa tahay oo reeraha kale iska celinaya intii dee xaggaa lagu hayay uun plus one uun haddaad noqonaysana ma fi faa'iida halkeedii baa la joogaya adiga iyo adeerada iyo awowyadaaba si uba u jabnaanaysaa si ubaana loo sii hoos maraya waxaynu isugu faano markaynu reeraha nahayna waxa weeyaan reer hebel iyagaa iga dhimasho badan maaha annaga ka nolol badan waa boqol baanu ka dilayana 10 bay naga dileen dhowrkii dagaalaanu gallay dee maxaad kordhisay waa 110 nin oo Soomaaliyeed nabada aakhira qabadsiiseen adna wax ma tarsan isna wax ma tarin inaad nin Soomaaliyeed aakhira u dirtaa wax dar kuma aha maaha waxaad soo kordhisay maaha wax dar maaha
إذا النوع أيين نفكرين النوع إننا وحكردين كرنه وعقل كيني كرنه وقوم كيني كرنه ومدن كرو قاضي كرنه عندي بقى فكرنه